maalin wanaagsan ayaa daawaneysaan oo Kalson TV idinkaga imaanayo gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay isla markaasina ciidamada dawladda Soomaaliya ugu baaqay in aysan ku milmin waxyaabaha isku hayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga musharaxiinta madaxweynaha dalka ahaana madaxweynihii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shalay shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah waxaan ugu muhiimsanaa in ciidamada dawladda Soomaaliya ugu baaqay inaysan ku milmin waxyaabaha isku hayaan siyaasiyiinta balse ay noqdaan ciidamo qaran dabcan waa ogtihiin bariyahan wixii magaalada Muqdisho ka dhacay iyo xaaladda guud ee dalka waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo tacsiyada dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ahay dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto dadka dhaawacana Allah caafiyo intaas kadib waxaan rabaa dhowrkii maalmood ugu dambeysay runtii magaaladu waxay gashay xaalad aan fiicnayn oo aan aaminsanahay in laga baaqsan karay arrimahaas oo dhanna waa wax la xiriira dawladnimada iyo hannaanka dawladnimada iyo doorashooyinka annaan la xiriira waxaan wada ognahay in xilliga doorashada sida muhiimka ay tahay in la wada og yahay ugu yaraan 6 bilood ka hor sida doorashada u dhacaysa heshiisna lagu yahay arrintaas ma dhicin mar alla marka loo sii dhawaado doorashooyinka ee aysan jirin wax la isku waafaqsan yahay waxa badanaya tensionka badanaya taasna waxay keeni kartaa dawladnimadu inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto marka aad iyo aad waxaan uga xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu galaayo aan lagu wada qanacsanayn haddana inta la xalil lahaay lagu xaliyay hab dagaal iyo hab ciidan aadan uga xunnahay waxaan aaminsanahay inay tahay arrin sharciga iyo dawladnimada ka soo horjeeda keeni kartana dalkan meeshii uu ka yimiday Ilaahay ma qadaro inuu laabto waa ka digaynaa marka ka digaynaa waxaan leenahay dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma waa arrin qaran maanta hadii la ogolaadana bariis oo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhamaato meelaan fiicnay sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana wali waqtiga la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dawladda tabashada laga qabo doorashooyinka gudiyada waxa lagu eedeeyay koow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay'adaha dawladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arrinta sharcigan noo yaala diidan arrintaas dawladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantay ususka koobaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayo dawladda waxa uu ka rabo doorasho xur ah oo xalaal ah wadiiqadeeda in la maro wax kale oo meesha yaala ma jiraan dadku haday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaan baxaan sharciga tilmaamaya oo banaan bixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu banaanka u soo baxay inuu kulan sameeyay waxay ka mid tahay hannaanka dawladnimada arrinta saddexaad waxa waa ciidamada dawladda ciidamo qaran hadaa maqashid waxay ku dhisan yihiin sharciga ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dawlad qof kastaba oo og yahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkan waxa soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku waxaan rabnaa ciidamadu inaysan ku lug yeelan arrimaha siyaasiyiinta u dhaxeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xalliyo waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaas ay ciidan qaran ku noqon karaan haday noqon waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciga ka leexdeen
xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyo looga sii darin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xigmaddu ay shaqayso wax aad wada hadal ku heli karto maxaa keenaya inaad ciidan u soo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yani xaafadan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafadan waxa ka jira ma jiraan waxa ka jira bardoorashada miiska la soo saaro waxaan rabaa hal noqdo muhiim ah in aan idin sheego doorashadan hanaankeeda dawladda kaliya ka shaqeysay cid kale shaqeysay ma jirto dawladdu waa laba heerka dawladda federaalka iyo heerka dawlad goboleedyada ayagaas ka shaqeeyaan annaga waa soo dhaweynay laakiin markii fulintii la gaaray waxa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aamusi karin annaga murashaxiin aan muwaxaqan u lahayn inaan niraahno hanaankan waa khaldan xaqan u lahayn marka waxa aan ka hadlayno waa xuquuqdeeni waana dadka Soomaaliyeed dhamaantood wax khusay marka dawladdu waxa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dawladnimo Soomaaliya maanta ugu ma horeyso ninkii yimidna waa baxa laga shak nin kasto yimaado waa baxa miithaalna hadda uma baahdinayno waa buuxa marka anaga waxaan rabnaa kursiga hadii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo hadii laga tagaayana nabad iyo sharaf looga tago dadkuna ayagoo muxaafid iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigan ku wada joogaan hadday si kale isu qadari waayaan sharcigan u dhaxayaan rabnaa aad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.